السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا محمد وعليكم السلام يا ميل والباتشوكتان وولاشين مع نورا جنال وحانا إذن الله يهك عمل فرنكسو دوادا ميل والباتشوكتان وولاشين وولكام با إذن الله يا وولكام أصحابتو حربانا إذن شيغا maanta waa maalin wanaagsan waa maalin isniina bishina ay tahay 2 February 2020 ilaahay nooga dhigo sanadkan sanad khayr qaba waa la yaaban yahay cimiladii baa isbedeshay jawigii baa isbedelay sanadkii baa isbedelay waa nolol cusub iyo waayo cusub sanad cusub oo muuqaal kale ah waxaa moodaaba aqri zamaankiiba in laga baxay calaamadii waaweynaya qiyaamahana aan gelaynaad moodaa wad ciyaadi billaah waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada meel walba aad joogtaan waa walaashiin oo idin leh qabow baa jiro gacmo furan kusoo dhawaada qabow baa jiro waxa waaye wadankan freezerkiisa ma yaro marka maasha allah walaalayaal waxaa u soo galay ayaantan qabowba waxaa dhacay cudurka la yiraahdo coronavirus walciyaadi billaah ilaahay naga ilaaliyo annaga iyo intii muslim ah iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto Soomaali Maxamed waxaan rabaa inaan idin sheego asxaabta oo idin leeyahay horta soo dhawaada waa walaashin macnuura channel oo idin la gacmo furan ku soo dhawaada share iyo like iyo subscribe iyo comment waa idin ka rajeynaya insha Allah waxaan rabaa hadii alla idmo inaan ma aragtay waxaan u soo kala maanta wax kala ma lin dhanaan wala waa dawo way ilaahay nagu caafiyo lintaan baa idin tilmaamayaa lintan waxa weeyaan waad karan waad jarjaraysaa si waa qofka hergebka qabo ana waxa ula jeedaa dadka hergebka qabo ayaa rabaa iyo xanuunka hergebka intuu dhaafay yacni muxuu ahaa size-kiisa intuu dhaafay uu xanuun kale isku bedelay oo hergeb saa'ida laba laabma u noqday oo 2 times ah kaa waxaa sameeyay lin dhanaankana soo qaadi dad baa ii sheegay qeyr Allah siiyo waad jarjaraysaa markaad jarjarto waad yaryareeni bakeeri biyo baad soo qaadani markaas hadaad kaligaa tahay oo aad xanuunsan tahay hadii dhowr qof walba bakeerigiisa aad ku cabiri waxaad karini 2 xabo laakiin markaa kaligaa tahay 1 xabaad karini markii aad 4 qof leeyahay oo kale 2 xabo ku filan ka badan 5 iyo ka badan markay yihiin 3 xabo ku filan leentana jarjaraysaa muxuu ahaa waad karini adoo sonkor waxba ku darin sidii shaah baad karini deetana waxaad sameeyni waad cabaysaa habeenkii markaad seexanayso wax markaad soo kacdo waa daawo inaba caadi ah maasha Allah ana tijaabiyay mid xigtana waad ogtihiin ummadda islaamka adduunka maanta gaal islaam lama kala harin lama kala soocin xanuunkan qof walba oo ilaahay ku caasiyay oo ummadda muslimka dhibaato u geystay ama af ha noqdo ama gacan ha noqdo oo dhibaato u geystay qof muslim ah oo waxba geysanin galabsanin oo walaalka ah ilaahay waa qafuur raxiim naxariistiisa waa noo soo degdegtay anigana kamid ah dadka ilaahay baryay ee dhibaatada badan loo geystay inuu ilaahay iga dulqaado dadkaas dhibaatada igu hayay maantana alxamdulillah ilaahay soo afjaray maanta hadaad ilaahay aad barido ogow ducooyinka waa ka yaaba ayaantan si dhaqso ah baa loo ajiibayaa ilaahay ummadan dhib bay igu hayaan ilaahay kuwan iga badbaadi
wax unbaa ku dhici markiiba maasha allah. ilaahay ha naga qabto. muslimiinta waxaan ka codsanayaa in khayrka lagu duceysto oo marka hore lagu duceeyo qofka hadduu maaragtay xanuunsan yahay ilaahay caafiyo, haddii uusan xanuunsaneyn uu yahay macnaha qof maan qabo oo u kas u sameynayo, horta ilaahay hanuun oga bari. hadduu hanuun ilaahay u qorina ilaahay dhinacii dhaafi dheh kugu filan. adigana ha ku dayaninahay ama haddii ku dilay ha dilin, haddii dhiigkaad macnaha nafkaa dilay ha dili, waxbaa ku sameynin, faraa ka qaad ku daa saas. ilaahay baa qabani mar dhow. waayahan adduunka jawaabteeda waa la soo dedejiyaa. qofka mu'minkaana dhibkiisa ilaahay waa ka badatay dhibkiisa, oo macnaha ilaahay maaragtay dulqaadka muslimiinta dhibaatada lagu hayo u dulqaadanayay ilaahay way ka dhammaatay dhinaciisa. waayo muslimiinta waxaa laga dhigay xayawaankii oo kale. xayawaan xataa ma aha, xayawaanka waa la dhaqaaleeyaa, waa la ilaaliyaa. muslimiinta iyo xayawaankii baa laga jeclaaday oo macnaha aada loo tarbiyayaa, laakiin muslimiintii waxaa laga dhigay mataqaanaa doofaar oo kale. caalamka dhan waa lagu dhibay, meel walba ay joogaan. qof walba oo maanta gaal caawiyo oo gaal taageeray oo muslimiintii muxuuha u dilay oo u dhibaateeyay oo usoo qabtay oo u jaajuusay, ogow adigana kama diwanid gaaladaas. waad la dhimanaysaa adduunyada dhexdeeda. dhibaatada waad ku marciqaabta loo soo diray. marka alxamdulilah anaga hargab yar baanay hayay. hargabkaas ilaaha naga dulqaado. waxaana idin leeyahay soomaali maxamed soo dhawaada. walkaam waa walaashiina maxaa noo raajoonaal oo idinla gacmo furan kusoo dhawaada. mida kale hadduu xoogaa hargabka ugu dhaco meel boor badan aad joogto oo boorka aan istaagaynin, meel boor badan aad joogto ama meel maaragta aad joogto muxuu ahaa qabow badan, sida anaga meelaha qurbahan aan joogno qabow, waxaad sameynaysaa maaski waad soo gadanaysaa. maaski waa taqaanaa, kanna dhaqtar ku yaalaa, waa free. meelaha dhaqtarada waa lagu siini. labadana isticmaali. marka isticmaasho wax allaa waxay ku hayo oo hargaba ummadda ku ag taagan ee masaakiinta ee daciifka wuu ka badbaado. haddaad rabto inaad badbaadiso ajiri xasanaad hesho xiro biliis. waxaan kaa codsanaa inaa xiratid haddii hargab xun ku hayo, maadaama hargabka waayahan uu fayraskina daba socdo. lama ogo inuu ku hayo kaayo in kale lama ogo, allahu aclam, ilaahay baa og. laakiin badbaadi intii aad badbaadin karta. ummadan ku ag taagan, ku ag fadhiya, kula nool, kula shaqeynayso ka ilaali. xataa walow hadduu qufac yar ku hayo. mida kale coronaviruska xoogaa waa ka duwan yahay hargabka. wuxuu wataa qandho, wuxuu wataa qufac badan, wuxuu wataa ciyaadu billaah ilaah naga ilaali. wuxuu wataa qandho badan, wuxuu wataa muxuu ahaa ii sheeg qarqar dhaxan aad dhaxamoonaysaa, qadhqadh cadbisa u taqaano. marka waad iska ilaalin. haddii intaasba aad dareento fadlan dhaqtar aad. gurigaa isku soo xirin, dhaqtar aad. dadkana badbaadi, ilaali. qofna ma aragtay yuusan ku dhicin oo ka ilaali dadka. marka ani waxaa usoo laabanayaa geedkaa idintusee liinte waan kariyey, kildhiganaan ku kariyey. waad u jeedaan kildhiga waan miirayaa, waana idin tusayaa. hal bakeeri baan karsaday maasha allah, waana idin tusi. waan u miiraya arka. waa liin, waa taas. waan jarjaray, waan kariyey. liintii way burburta, xataa ala burburin karaa. go-aysaa wataa. waan karkariyey. waad u jeedaan bakeeri wuxuu ahaa. muxuu noqday bakeeri haafkii oo xoogaa yar baa ka maqan bes. maasha allah waad cabaysaa. sokor dhan kuma daraysid, waxba kuma daraysid. waxba kuma daraysid, sankorna kuma daraysid. saasa ku dayno.
marka waxaan idin leeyahay asxaabta meel walba aad joogtaan shaaha sidii shaahii u karsada. waxaa kale idinka iloobay subaxii hal mar habeenkii hal mar saasay samaynaysaa. weliba adoo baahan baad cabi habeenkii adoo wax cunaa maadaa an laakiin habeenkii ma casheeyo waayo ma cuno cuntadaas habeenkii cunto dhan waxaa kuu dhiman haddii aad waxa saliida la cuni karin. waxaan saliid malaha waa nafaqo. marmarahan kajaawgii sabiibkii iyo lowskii baa ku jiro iyo miro kale oo aanan garanaynin aadin tusayaaba kaa mirahaasa ku jiro kaas ma qanaane marka bacdaana ku sawiran yihiin badanaa ayay ku jiraan. aniga hadda herkabka ay hayo ayaantan waan xabeebsanahay waayo gaajada uma fiicno. gaajada uma fiicno maaragtay herkabka waa inaad iska daweyso oo aada gaajoonin oo aada waxba noqonin. allah mustacaan waxaa idin soo haray oo idin tusayaa wax kale waxaa idin tusayaa soodhadan iyadana waad cabaysaa soodho weliba beebsigana fiican herkabkuu kaa caawini isagana wuu caawini weliba dadka saliida ay hayso marka herkabka ayaantan aan aragno waxaad dareemi saliid baad soo daaci calooshii baa lagaa qabani calooshaa laguma jiiri taas waxa weeye ayadana tana u fiican tan iyo kookada labadana u fiican maasha allah. dadna waxa weeye caadi u qabataa mantagna waa dareemi haddaad mantagaysana soodhadana ku caawinayso maasha allah. asxaabta waxaa idin leeyahay intaasaan usoo galay waa walaashii nimca noora channel meel walba aad joogtaan gacmo furan kusoo dhawaada. waxaan idin leeyahay sii sheer gareeya like iyo subscribe saara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soomaali waxaan leeyahay ilaaha caafiyo meel walba ay joogto.